Sidii aan ku aragnay qaybtii hore Wall of Immortals, markii Shao Kahn uu ka baxsaday cadowgiisii ayuu galay keynta, halkaasoo kula kulmay 3 qalfoof oo ruuxaan ah. Ugu dambeynna waxay noqdeen saaxiibo wanaagsan, waxayna si wadajir ah uga dhaqaaqeen hawl cusub. Markii dambe, Shao Kahn wuxuu la dagaalamay Emir Jiyu iyo Zhao, waxaana dagaalkaas ka caawiyay 3daas ruuxaan. Laakiin markii Emir Jiyu uu bilaabay inuu adeegsado awooddiisa dhabta ah, wuxuu 3dii ruuxaan ku qaboojiyay barafka, isagoo ka dhigay kuwo aan dhaqaaqi karin. Kadib, soo Shao Kahn u dilo, Emir Jiyu wuxuu soo saaray bahal weyn oo 100 lugood leh. Shao Kahn isna uu isku diyaariyay dagaalka, wuxuuna dhaqaajiyay fargaladiisa ruuxiga ah. Bahalkii weynaa ee 100 lugood lahaa ayaa dhinac walba ka hareereeyay Shao Kahn. Markaas ayuu Shao Kahn yiri, "Kaalaya, aan arrintan halkan ku soo afjarno." Wuxuuna si buuxda u dhaqaajiyay awooddiisa, halka bahalkiina uu aad u xanaaqay. Shao Kahn wuxuu ku qaaday weerar xooggiisa oo dhan ku dheehan yahay. Laakiin wixii dhacay intaas kadib waxay noqdeen wax lala yaabo. Jirkii Shao Kahn oo dhan ayaa si lama filaan ah u adkaaday, wuxuuna u ekaaday sidii qof gebi ahaanba dhagax isu beddelay, isagoo aan wax dhaqdhaqaaqa samaynayn. Waxaasoo dhan waxaa sababay bahalkii 100 lugood lahaa. Dhanka kale, markii Emir Jiyu uu arkay muuqaalkaas, wuxuu ku yiri Emir Zhao, "Amiiradeyda, waxaan gutay waajibaadkii aan ballan qaaday. Waxaan kuu sheegay inaan kaaga ari doono aan dili doono wiilkan. Waxaan ku ballan qaaday inaan ka adkaan doono, waana ka adkaaday. Noloshiisa hadda adigaa iska leh, waxaadna ku samayn kartaa wax kastoo aad rabto." Zhao ayaa uga mahadcelisay arrintaas. Markaas Emir Jiyu wuxuu yiri, "Inaan amiirada u adeego ayaa ah abaalmarinta ugu weyn noloshayda. Waxaan diyaar u ahay inaan wax kasta sameeyo si aan dhoolla caddayn uga arko wejigaaga. Kaliya amar i sii, wax walba waan kuu qaban doonaa." Zhao waxay ku jawaabtay, "Wax badan ma doonayo, waxaan rabaa oo kaliya in lafihiisa la burburiyo oo halkan lagu daadiyo." Markaasay seefteedii qaadatay iyadoo u sii socota dhankii Shao Kahn, waxayna tiri, "Maadaama aan ka tirsannahay hal qabiil oo isku qoys nahay, waxaan qaar ka mid ah lafahaaga u qaadi doonaa adduunkeena, laakiin inta kale waxay ku baabi'i doonaan adduunkan." Dhanka kale, waxaa la tusayaa Shao Kahn oo gebi ahaanba dhagax isu beddelay, laakiin isla waqtigaas waxaa ka muuqday dhaqdhaqaaqyo yaryar oo jirkiisa ka dhex socda. Ilaa ayaa u muuqday inuu dhex qulqulayo jirkiisa, waxayna u ekeyd inuu isku dayayo inuu jebiyo qoloftii dul saarnayd. Markaas Emir Jiyu ayaa yiri, "Jirkaaga gebi ahaanba waa la xidhay, laakiin weli ma quusan. Hawlwelin wiilyahow, noloshaadu dhowaan ayay dhammaan doontaa, mana sii xakamayn kartid jirkaaga muddo dheer." Isla markiiba Emir Zhao waxay qaaday weerar iyadoo adeegsanaysa seefteeda. Wuxuu weerarkaas hal mar ku burburin lahaa jirka Shao Kahn ee dhagaxa isu beddelay, laakiin isla daqiiqadaas waxaan aragnaa hilaac ku wareegaya jirka Shao Kahn, kaasoo si tartiib tartiib ah u jebinaya qoloftii ku daboolnayd. Isla waqtigaas, Shao Kahn wuxuu ku jiray adduunkiisa ruuxiga ah, wuxuuna gaaray heerka labaad ee ka gudbidda heerka bini'aadanimada, taasoo si weyn u kordhisay awooddiisa. Markii seeftii Emir Zhao ay ku sigatay inay ku dhacdo, dhammaan qoloftii ku daboolnayd jirka Shao Kahn way burburtay. Tamar aad u xoog badan ayaa ka qarxday jirkiisa, taasoo ka dhigtay in cidina xitaa u soo dhowaan kari weydo. Muuqaalkaas wuxuu ahaa mid cajiib ah. Kadib Shao Kahn wuxuu kor uga booday cirka, isagoo cadowgiisa tusaya awooddiisa cusub. Wuxuu soo degay isagoo jirkiisa hilaaca leh soo bandhigaya, wuxuuna hal qarax oo kaliya ku burburiyay dhammaan dhagaxyadii barafka ahaa ee ku wareegsanaa. Markaas ayuu ku yiri, "Qoyskayga weli wuxuu ku sugan yahay Kyushu, aniguna weli kuma noqon. Haddaba sidee ayaad ugu malayseen in Shao Kahn aad ka guulaysan kartaan?" Isla markiiba wuxuu Zhao dib ugu celiyay weeraradii kristalada ama barafka ahaa. Si Zhao u difaaco, Emir Jiyu wuxuu soo diray bahalkiisii 100 lugood lahaa. Bahalkii 100 lugood lahaa ayaa weerar ku soo qaaday Shao Kahn, balse Shao Kahn si fudud ayuu uga baxsaday. Intaas kuma uusan ekaan, wuxuu adeegsaday faraantiyadiisa ruuxiga ah, isagoo si xawli leh ugu cararaya bahalka. Bahalku wuxuu isku dayay inuu ka baxsado oo khiyaaneeyo, laakiin kuma uusan guulaysan. Bahalkii 100 lugood lahaa aad buu u xanaaqay, wuxuuna diyaar u ahaa inuu wax kasta burburiyo. Xanaaqiisa ayaa si cad uga muuqday. Shao Kahn isna hortiisa ayuu istaagay weliba si kalsooni leh, isagoo u ekaa haliyey awood badan oo la dagaalamaya bahal weyn. Markaas Shao Kahn wuxuu adeegsaday awoodda heerka labaad ee ka gudbidda bini'aadanimada, wuxuuna ilbiriqsi gudahood ku qaaday weeraro badan oo xiriir ah. Bahalkii 100 lugoodka ahaa wuxuu u kala go'ay qaybo badan, wuxuuna ku dhacay dhulka. Tamarta qaraxaasi waxay sidoo kale sii daysay 3dii ruuxaan ee ku xayrnaa barafka. Shao Kahn wuxuu ku yiri, "Waad dhaawacanteen, marka intaan cadowgan mashquulinayo, idinkuna halkan ka taga oo kala baxa. Mar kale ayaan kulmi doonaa." Boqorkii dib u dhalashada wuxuu galay dhulka hoostiisa, halka labada ruuxaan ee kale ay iyaguna dhinacyo kala duwan u baxeen, san Emir Jiyu iyo ciidankiisu u dabagalin. Shao Kahn isaguna isla markiiba halkaas ayuu ka cararay,
markaas Amirjiyu wuxuu yiri goobtan waxa lagu magacaabaa boqortooyada boqorkan dhimanin. Haddii wiilkaasi isku dayo inuu halkaas ku dhunto, Huwal wuu dhiman doonaa. Wuxuu xitaa shaqadeena ka dhigay mid sahlan. Laakiin Zhao waxay tiri maalmo yar gudaheed ayuu ku gaaray heerka labaad ee ka gudbidda bini'aadanimada. Ma waxaad runtii u maleynaysaan inuusan halkaas ku noolaan karin hadduu ka badbaado oo baxsado? Mustaqbalka wuxuu khatar weyn ku noqon doonaa aniga, adiga iyo dhammaanteenaba. Sidaa darteed ma doonayo inaan halis galo aan sii daayo isagoo nool. Amirjiyu wuxuu ku jawaabay, haddaan si kam ah u kicino boqorkan dhimanin, waxaan geli doonaa dhibaato aad u weyn. Muuqaalka xiga waxaa lagu arkayaa dhulka meydadka, halkaas oo Amirjiyu iyo saaxiibadiisa si degdeg ah ugu socdaan. Amirjiyu wuxuu yiri markaan xaqiijiyo geerida Xiaoyan, isla markiiba waan ka tagi doonaa meeshan. Dhaqsada waa inaan helnaa un dilnaa ka hor inta aanu boqorka dhimanin soo toosin. Dhammaantood waxay kordhiyeen xawaarahooda, laakiin isla deegaankaas waxaa kasoo muuqday tamar madow oo xoog leh oo kusoo wajahan iyaga. Tamartaas waxay markii hore bartilmaameedsatay askartii. Mid ka mid ah askartii markay si buuxda u qabsatay, wuxuu isu bedelay ruuxaan shar ah, wuxuuna bilaabay inuu weeraro oo dilo saaxiibadiisa. Markii Amirjiyu iyo Zhao ay arkeen arrintaas, waxay yiraahdeen waxay u muuqataa in dadkaasi ay qabsadeen ruuxaano shar ah oo ka yimid dhulka meydadka. Mid ka mid ah askartii la qabsaday ayaa isku dayay inuu weeraro Amirjiyu. Askari kale ayaa isku dayay inuu joojiyo si uu amiirka u badbaadiyo, laakiin Zhao ayaa seefteeda la baxday, hal marna laba qaybood uga kala jartay askarigii la qabsaday. Kadib Zhao waxay tiri maxaad weli sugaysaan? Kuwa ay qabsadeen ruuxaanta sharka ah isla markii bedela, waayo taas kaliya ayaa ah habkan isku badbaadin karno. Sidaa darteed, iyagoo sii baxsanaya ay askartu dileen cid kastoo ay qabsadeen ruuxaanta sharka ah. Zhao iyadana waxay adeegsanaysay weeraradeeda seefta ah si ay u disho dadkaas la dhex galay. Dadkan ay qabsadeen ruuxyada sharka ahi waxay ahaayeen kuwo aad u khatar badan, taasoo keentay in Amirjiyu si degdeg ah u baxsado si naftiisa u badbaadiyo. Markii xaaladdu adkaatay, Amirjiyu wuxuu adeegsaday awoodda waraaqihiisa sixirka ah, kuwaas oo awood u lahaa inay ruuxaanta sharka ah ka saaraan jirka dadka. Sidaa darteed, dhammaan askartii la qabsaday waxay dib ugu soo noqdeen sidii hore, waxayna u soo urureen amiirka. Laakiin intii uu arrintaas ku mashquulsanaa, Zhao ayaa si lama filaan ah u luntay, mana jirin cid garanaysay halka ay aaday. Mid ka mid ah askarta ayaa sheegay, wax yar kadib waxaan geli doonaa dhulka boqorkaan dhimanin. Haddaan taxadar la'aan ahaano, dhammaantiin waan dhiman karnaa. Amirjiyu wuxuu ku jawaabay, weli waxaan haystaa hal warqad oo awood leh, waxay naga ilaalin doontaa ruuxaanta sharka ah. Kadibna si degdeg ah ayaan halkan uga bixi doonaa. Iyagoo ku tiirsan awooddaas, waxay sii wadeen raadinta Xiaoyan. Dhanka kale, Xiaoyan wuxuu gaaray gudaha kaynta. Wuxuu is yiri hadda uma malaynayo inay heli karaan, laakiin maadaama uu adeegsaday awood badan, jirkiisu aad buu u daciifay. Markaas ayuu hortiisa ku arkay god aad u weyn oo ay ka buuxaan kristallo dhalaalaya. Halkaasna wuxuu ku arkay qof u eg jin oo loo yaqaano boqorka Jahannama. Markii Xiaoyan u soo dhawaaday, boqorka Jahannama ayaa si lama filaan ah u weeraray, wuxuuna u jiiday meel kale oo qarsoodi ah. Dhanka kale, Zhao aad bay u tabardarnayd, xitaa jirkeedu ma lahayn awood uu ku socdo. Isla markaas ayay aragtay ruuxaano shar ah oo kusoo wajahan si ay u dilaan. Markaas ayay tiri ka hor intaysan wax igu dhicin, waa inaan marka hore dilo ninkaas. Iyadoo geesinimo muujinaysa oo dhiiran ayay hore usii dhaqaaqday, waxaana horteeda kasoo muuqday god kale. Muuqaalka xiga waxaa lagu tusayaa qabriga boqorka meydadka, halkaas oo Xiaoyan lasoo tuuray. Markii lasii daayay, wuxuu ogaaday inuu yimid meel aad u gaar ah. Meeshaas waxay ahayd buur weyn oo ay ka buuxaan meydad iyo lafo kala daadsan. Markuu hareeraha eegay, wuxuu arkay lafaha oo meel kasta yaala. Halkaas waxaa sidoo kale hurdayay boqorkaan dhimanin, kaas oo gaaray heerka 9aad ee heerka marnaanta, taasoo ka dhigtay dagaalyahan aan laga adkaan karin. Xiaoyan markuu arkay arrintan wuu la fajaacay. Meesha Xiaoyan ku sugnaa waxaa ka buuxay tamarta dhimashada, waxaana si xooggan looga dareemayay urta geerida. Laakiin wuxuu ka baqayay ma ahayn taas, waxay ahaayeen geedaha iyo xididada ku baahsan agagaarka, kuwaas oo leh awood ay ku nuugaan tamarta nolosha ee noole kasta oo u soo dhawaada, kadibna ay ku quudaan boqorkaan dhimanin. Sababtaas darteed, boqorkaan dhimanin weli wuu hurday. Xiaoyan wuxuu is yiri haddaan muddo dheer halkan joogo, xaaladdu waxay ugu noqon doontaa mid aad u khatar badan. Waa inaan sida ugu dhaqsaha badan u helaa waddo aan kaga baxo meeshan. Markuu isku dayay inuu ka baxo, si lama filaan ah ayay ruuxyo shar ah u galeen jirkiisa. Ruuxyadaasi waxay bilaabeen inay qabsadaan gacmihiisa, lugihiisa iyo jirkiisa oo dhan. Xiaoyan ayaa markaas yiri ka hor inta aanan aniguba isu bedelin ruux shar ah, waa inaan si degdeg ah uga baxaa halkan. Sheekada inteeda kale waxaa lagu soo bandhigi doonaa qaybta xigta. Asxaabta sharafta badan, like inoo saara muuqaalka. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir.
waad ku mahadsan tahay daawashadaada.